بسم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي رآنا ونحن في صدر المعاصي فلم يفضحنا يوما. الحمد لله الذي يحلم عنا كأننا لم نعصيه أبدا. الحمد لله الذي أعطانا ومن علينا. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على من لا رسول الوحي من الله ولا نبي بعده، محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii walaalahay war fadhiya aqoon-yahanada da-da yarta maamulka jaamacadda, guddoomiyaha jaamacadda, waxaan ku salaamaya salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. runtii hor istaag dad hor istaago mar hore ay ugu dambeysay. runtii waa walaalo way qasbayaan. runtii maanta hadalkii ma banaana bikulli saraaxa, laana waan caatifadeysanahay, emotion baa igu jira, waan maseersanahay, wax kale ma odhan karo. waxaan hambalyeelayaa oon ogaadinayaa ardayda jaamacadda Daavoodil oo runtii guul la taaban karo oo muuqato gaadhay, oo runtii anaguna inoo noqonaysa emotion iyo na soo gaadha wax magac saas loogu magac bixin karo ay noqon doonto. oo runtii qoytigayga ugu koobaad ogaadin oo runtii aan caatifad kusoo koobi karin buu noqon doonaa. qoytigayga labaad anoo hadalka soo koobaya wuxuu noqon doonaa hiigsi iyo han oo aan odhan karo runtii walaalka madaxa u ah jaamacadda Daavoodil, walaal Axmed. runtii waxaan hubaa oo ku kalsoonahay nin aan wada shaqayn doono oo hiigsi daba oo muuqda oo runtii loo baahan yahay aan wada gaari doono in aan ka wada shaqayn doono. haddii noqon lahay in kala baahsanaanta muuqata na daahsatay inaan soo koobi doono haddii aan wada shaqeyno, uu Axmed shaqeeyo, uu Cali shaqeeyo, oo xaawana ay shaqayso, runtii ay noqon doonto unitya. waxaa carabtu yidhaahdaan waraabuhu wuxuu cunaa rida gaarka u baxda. dhibaatooyinkii yaalla ee muuqda ka wada simannahay tii jaamacadeed iniga xashan doona oo guddi u samaysta oo isqurxiye oo ishagaajiye, taa iniga xalkayga la imaan doona. midda jaamacadaha waddankan daka ku yaalla ee caamisa ka wada simannahay, runtii guntigaan u xeedan doonaa intaan waddanka joogno ha koobnaato. haddaan annagu xataa ayna anfici weydo waxqabadkeeda, waxaan hubaa in ay anfici doonto dadkay naga dambeeyaa oo bays qurux badan oo ay noqon doonto wax aad loogu tashtaa. wax kaloo kusoo koobaya male. hadalkayga gunaanadkiisa waxaan ka dhigi lahaa ardayda martida ah ee jaamacadaha kale ka socota aan Daavoodil ahayn. waxaan leeyahay fadhiga ka kaca. waxaan leeyahay isgarta oo maseera, waxyaalaha quruxda badan le waa loo maseera bikulli saraaxa. waan i hambalyeelayaa reer Daavoodil. annagu haddaanu nahay Asian Pacific, laba qof oo aan ku dhiganaa jaamacadda gebigeeda. labada qof ee jaamacaddaa dhigata saasoo maamul ugu samaysan yahay. sidaas kale waxaan u nimaadnaay wax kale weeyaan, waa inaan jaamacadihii kale isku soo xirno wax qurux badan oo u eg dadka quruxda badan leh inaan samaysanaan rajeynaya. waan ka baxay. asalaamu calaykum. uma noqonaya hadalkiisa aad ayuu umahadsan yahay Mr. Cumar oo naga soo booqday jaamacadda Asian Pacific si uu mataqaanaa wala qayb qaatay xafladda quruxda badan ee caleemasaarka ah. waa xafladda caleemasaara oo guddoomiyaha ardayda jaamacadda ardayda Soomaalida ee dhigata jaamacadda Daavoodil, engineer waxaa ka wada Mr. Guutaale, Axmed Xasan Guutaale ayaa caleemasaarayna maantay. runtii waa wada qiiraysanna dhammaanteed. waxaan rabnaa arrintan inay xoog u socoto. runtii waxaan soo dhaweynayaa dhalinta jaamacadda dhigata arday afkooda ku hadla una hambaliyeeya programkii soo dhacay iyo kan hadda socdo maantay iyo midka dhici doona insha Allah. runtii hiigsigeena wuu adag yahay. waxaan wacayaa Mr. Cali Maxamuud, Mr. Maxamed Cali Maxamuud aan ka wadaa. Mr. Cali Maxamuud waxay rabtaa hormariyo jaamacadda STEM oo ka baxay Computer Information System. haddana wuxuu dhigtaa jaamacadda Daavoodil department wuxuu dhigtaa MBA program wuxuu kasii dhigtaa
management information system. مستر علي وعيا فضل مشكورة إيش الدوية وقت المجامعة iyo martida xataa loo joogto meesha yani ama jaamacada kala duwan waxaan ku dooranay waxaan ku dooranay inaan yahay qof ka bixi kara shaqada aan yani u soo xilsaaran waxaan ku dooranay sidaan ku dooranay inaan ugu shaqeeyo yani waqti badan ka soo shaqeynayay xafladan aad iyo aad u badan ee laga soo shaqeeyay ugu horreyn waxaan leeyahay qofkii ageeyo maasifkiin hadafkii yani aan soo qabateen maanta uu guulaystay maanta waxaan joognaa xilligii yani juuliyaan ku wareejinay dalka oo ay tahay cala masaar oo maanta ay ku raftaan mas-uuliyiinta maanta inta kale doodaan yani waxaa intaan ka jooga aan ka barta keliya waxay tahay ardoo soomaali aad u diraatiisiyiin waxaa laga yaabaa yani usama aqoon xafiiska yani diiwaangelin lahaa horumareen badan uu ka jiro safarkii iyo dhibka rafaad yani waxaan ku codsanaa in la caawiyo in la iscaawiyo oo la noqdo dad isku xiran oo yani midaysan oo noqdo ool iyo diidka in la noqdo haddii yani aan noqdo dad isku xiran waxaan gaari karnaa hadafkeena hadduu leeyahay marka dad isku xiran oo yani iscaawiyo aan naqano waxaa naga dhexeeya waxaan naqo Soomaali marka dabcan Soomaali waxaa kala qaybsanto marka hal dadaalo gudoomiyaha waxaa ka rabaa shaqo badan oo muujiyo waxaan aad u farxay waxaa kamid oo yani sidaa doono calanka Soomaali marka jaamacada Puntland la qabto maxaa ah calankeena markaas oo leeyahay marka waxaan ka geynaa gudoomiyaha shaqada oo soo qabanayna in noqoto calankeena inuu jaamacada ka dhigto adoo idin karo Soomaaliyeed adoo idin loo qaban waa Soomaali marka anaga Soomaali inaan cadeena jiritaankeena intii aan anay waxaan muujinaa calanka marka shan gudoomiyaha waxaan ka codsanaa oo ka bilaabo shaqada koowaad oo calanka meesha keeno Soomaalida loo adeego anagana aan la shaqeeyo gudoomiyaha dadka kale ee jaamacada dhigtaan ardayda ay meesha marayaan marka u jeedaan aan ku dhisaano kadibna Soomaalida la soo wada meeshantiin salaam alaykum وين صور دعو إن سيدو كله دانتدي دنيا دانتدي بيجاسين هاي المرة ونتو السعودان برضي هولو وزلو السعودان إن وحاول مرنا يا كلمة أنسين دون إن شاء الله أستاذ خالد نوقع مستر علي عافية تذكر يقانين لكن هذا تعريف الكبير وحكي من يارد المقدشو حافظ مش شيء وبريد اوكي مستر علي عافي وحده بجامعه مقدشو ومتقنا انجلش الثلاجه ايوم جامعه مشباش خاطي حقنا وماضي لو جامعه وقري ايسترن ستانفورد وقري لوده وحو كلا دياريا environmental science iyo wuxuu ka diyaariyaa English maadaama baahiisu English ahaa si master English ugu dhigto iyo environmental science Mr. علي عافي soo dhaweynaya ila soo dhaweeya waa ambariyo warka maanta oo dhawaada سلام كذب أردت شرفت الله هذا قرف بدن هذا السلامة إنجنا عمره ده وحبان رادين لك وحب رادين غرق صورة هاي أقول لو قبرت عليه هاي الحمد لله أنتوا حاول ما دعوير وحرين سووا ما أنا ما تنفين ما شاء الله سلام يا قدوميها شرفت الله waxaan dhihi lahaa gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee Bangladesh ilaa maxay waa markii ugu horeysay markii labaad way laakiin midaan wax way tii hore waa ka duwanta marsi waa ka soo qayb galnay marka laba qodob aan ilaa taanka aad u socdaa qodobka ugu horeeya waxaan dhihi lahaa gudoomiyaha markuu uu sameynayo guddi iyo waxyaabo kale ha naqdo guddiga adag kula shaqeynayo oo isla socdo wixiina ha ahaado wax dokumenti ah war kaligiis meel ma soconaay marka adduunku waa la horumar marka caalamka sidii hore ma xafiiska taga dokumentiga keenay no problem dib kale ma ku haysabaad laakiin hadda dhaadid oo afkan ku soconaasaan way isku dawreyn la ku jiray maanta dhan marka guddiga iyo dadkii la xiriir waxaan ka codsanaa inay waxooda habaystaan oo far kaligeena fool ma dhaqda aan la shaqeyno Soomaalinimada maanta saan u qurux badannahay wadankiina aan geyno maanta xaaladda Soomaali way noo baahan tahay anaga oo dhan mid kalena wax way ardayda oo reer Bangladesh aan badina wax akhriska aad u yaryar leeyahay ana sidii aan ka bilaabo dadka ardayda Bangladesh aan fasal kula fadhiyo u fiirsada wallahi time-ka ay wareegayaan iyo time-ka ay Facebook ku jiraan iyo time-ka wax aqrinaya badan waxa arkay jaamacadda dhigta lix jabtar aan taxanuun galay lix jabtar page ku page oo qorka xafiday
امتحانك مركا A بلاس وكان محاك كان وحبو أخرس كمركا هو very important هو أن وح آخرنا أن وضعك مركا قلابنا وح أنجينا نظام أنت حقوق نظام كان نظام كتب أو على الدولة يدنا على administration أن كبرنا أن أسأفكينا وح نظام كأرنا أنجينا حاجة مركا ورك أنجينا وحبلنا صهر مرة إن شاء الله وحنا رجينا يا قدوميها عصب على شقينا هرمر بول رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وحربا سكال إلى بين رسول ويسين ماذا حبب البريش كجامعة يو عويس أو نوت هاي البابك سوق يعني إن طلع سود وينه مكان سود إن شاء الله أو يستاهلوا أوكي عمسان بوتان إسماعيل هذا فوما DIU هذا مثلا شركة university تا باش بيسوي هاي الفرقة عن telecommunication أنا المشكلة هاي وحنا هيئتك الصومالي وهري هو المشكلة في ماذا؟ The foreign is the best university in Bangladesh. Best university. عسكر يقدر يجي أي ولا وعندك international university. يعني environment تيجي sometimes يروح بانت هنا بدرجة. Anyway قدوميها ما أنت على مسار رفت كيسة وحسنا لك سنة عاد ذاك international university. مركا واحد جعله هنا كوسة دويه سي قدوميها لبعض مركا نقول له ما قلت. طبعا برنامج كان أرضه الصومالية من الله السماية مهم وبرنامج مدبر سو سعودي وحن حسوستا دفول أنا وصدق قفا يعني لهان جرني قدومية داير با قدومية لهان جرني ما ترى بقول أرضي يكبرن أياتين وحن ما نسمع قدومية لما برجع أنا أنتو أروحون بسيط وحن رجعنا إن شاء الله كريم نسأل السعود قبل حقه حتى رسيس ما قلت كان لبعض معمول إلى السماء طبعا وأرضه الله السماء ماشي أنا قلت لا بكرو وجامعة لبعض منطقة جامعة قدمنا الجامعة هي حريران دفعوا ما أنت تكتب جامعة لها ما قلتي أيام كذا jaamacadahaas markay isku yimaadaan ururka ay sameeyaan wuxuu noqonayaa urur waxtar leh rag badan oo waxaan xasuustaa isku dayay in badan inay Soomaaliya isku keenaan waxaa ka mid ah markaada Xaaji Cumar welcome Xaaji Cumar waxaan xasuustaa in Xaaji Cumar uu qof ugu tagay magaalada ka arkay jaamka iyo magaalada socodka ما في عام قف كسر هذا وحسبنا ورر أرض الصومالية وأي واحد لا sometimes community وهتوصل organization في عن problem ضرب بسوى جاني رب يحسوا جاي يدرك كوحبر شرع كان وحكة سمجري حسيات الحمد لله العالمين ذلك السمية بين في عام وما تمريا جامعة بلان واحد يشتغل كوبا ينكر بارك على كل حال وحنوهم بلينا صاحبك يا أحمد حسن كوتال وحنجعل إن شاء الله كريم ذكرك كلام مقالتي وحكاية نقطة الله معكم ما شئت السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل الناس أو مقعدرني إلى الصدق كذا هي مسوسة مردو runtii waan filayaa dareenkii dhiig dadka dhaqaajin doonto laakiin waxaan ka hormarinaynaa martida kulay dabcan gadaal lagu joogi doonaa laakiin waxaan ka hormarinaynaa heesta calanka maadaama dadka inay wada joogaan ayaan ka hormarinaynaa mar dhow waan soo dhaweynaynaa soo dhawaada ayagan u shacbiisa u dhiiran gashay
kaco waxaa wacaynaa Mr. Ciid si uu mataqaan loogu madadaaleeyay fadlan mashkuur Mr. Ciid تعالى وبركاته مدح student foreign كطه حسين جامعة الفورد انترناشونال يونيفرسيتي معروف كوري تقانا يكتبين أحمد تعالى فاستي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadka hadii marka wada qaatan hebel adii soo dhawow oo gudoomiyaha wax ka dhe hebel adii soo dhawow ayad quraan la ahri hebel adii soo dhawow marka anaga dad ku sii biiro oo dhaw oo hebel asaan tahay aan waxa waa maadigiisa waa diiniga aakhiri adduun سين واسمه بروسيسكي معناها وهذا المروحي معناها أبو قادوي المحي الشيغان أنا حكم قادمين وحيا وحنا رضاعينا يعني لو ذاكو كان يرضى ما أعرف مقال ليش يوكتا كان عن تكا شوشا مدي ودقال بصوشا عطاحيا مركا أدويدو ستيب باي ستيب وانا أنا ويا عطاك روح أقول أبو تكسيد القرآن كما ديغانا يو حافظ سوق حولها ليرة كنت علىها وحصل كان هذا اللي هو على صورة لكن ورانسار كان يجي تلاقي أنا جالس أسمع ولا ليرة لا راسيات ولا خصوصا سنين تي على ورانسار عنك هاي تيجي تلاقي كنت على مش ليرة كنت عالي ويا يعني يسكت أربعة مثلا كم على يوم لك على كاتو هذا كنت حتى سكت يعني تجسمي دي أبي وكنا بتوسي ما تيجي نحارب نلعب ولا توسي تيجي أبي نواني عارف وملتري جينا سومالي سومالي ولبنا وحيديش كي وطن كان بجانب مركو حرنا قادنا دواتي كودي دواتي نبض علم إنسان بريء باكستان بس كبرين وعم صدرنا علم أفريقيا ومنو علم الصومال دولة جيرين عباية اللي قاسين يتوصلوا وشري فحكوا هم يقولوا مثلا علم كملتري صومال كبرة وشري إن أنكر علم كمجال ليش لو قادنا لكن لو ما صدرنا سيبتنا سجاش كنا نوصل بريستيت بقول عسكري أو ما بتاع باكستانيين يسوي أفريقيا نيويورك إن ما تايلور ما تيجي علم دي يفيدوا عاوني حكومة دي من الصوم ستيف لغة باكستاني سلطة البنغلاديش على يعني صلاة كاربين كوريدو معنا والله معنا. وكان سيدنا وحواي وأنا العنية سيدا وضع هذا يبغى هواي ذي أبي أنا حلم مرتين أخذ شيء أبي قلت له عن عينه هواي قالوا له هاي كيسو كمين هاي حلم مرتين هواي له سيد كون هذا الشيء. إنت سيدا هواي ذي والله بين مش الله ما له كذي هواي ذي أبي يسوي سلامي ما كان ولا ويقول منه يسوي عين واي أنا سوي عيسى هذه وخبرش أبوه ترى وخبر ما له بيخد دوبا ما سوى بعدي وكان شكلي مبصر كايرتا وحارة وأنا وحيد من المشاكل يقدمها عنها قراري كيف كل شيء كان قرارات بروجكت مانجمنت كيف تايم مانجمنت كيف وها بدنا وين متعود لنا معنا مركز طبلان ولا سنة على طول هدي بلان كان أو كوليستو أوريدي وكوليستي لكن هدي بلان كان أدتيستي أوريدي أكوليستي وده واسعة محايا بلان كان فاستيجها أيام من ونكسن أنا هاي مركز حكمة واحد هاي وان صعلا ميل وان صعلا ما أقارنه حتى وحتى تكتب ماشي أو سعود السداء يا قرنا سنة هاي ماشي إن كلام لما شيء كان مطلق جاورا حوالين الأول هذا أو نبى واحد جعلنا برتقالات نبى أدفوج على مر عقد بها يسوعوا هاي معان ما كتير سود اللي عاوية بس كتير مش مستعجلات أو علامته هكتير كان بس كسو كتير أو قيلات مش مقعد بس كوكي أو حاجة زي الطاهر ما كده بقرأ كده يسوعوا كهذي بوك يديسو بوغان أي بقولنا أو بوغان ستيب كتير طلعوا كريه كوبس بوك يأخذ ستيب فاست ستيب حاجة بقى هديار أنا كان كفرت بوك أنا ما تو ما هديار طول هاي ورا بوغان في ورا عرض هديار طول كله بوك ستيب باي ستيب بوك أي وإنما ستيب تو راعي أنت أصلا ما يبغى ولا كليه معنا ستيب في السورية حد من البداية ما يصير أنت صعبت ما كنت مسبات تدرس ما يروح على هاي وتقول استياب أنت نعيشه وحقول من هذه الجزء بوكتو بساطة بوكتو الموت taas markii waxay keentay in naftiisa halibo oo meesha uu qaxay dad minis qorshii kufri muusanayn asaga oo maartay oo balan gareey another balaanka kale oo education ku salaysan waxa waaye nimba haweendiisa 24 hours waa dilaan dil macnaha waxa dhaqan ku taqaana mugtahay waa tii ugu dambeysay macnaha aan sheegay waa marka soo dagaalama markii toole in aad wax ay jecel u ahay meel dii baa maxaa kala dagaalay wax la mid ah tawiis marka school of management iyo kale macalinka wuxuu ku dhahay management wuxuu ka soo bilaawdaa home ka soo bilaawday waxa loo baahan yahay soo kacay soo ka turkiga ma qadisi saxisi habeenkii turkish wax saxnaa bilsan dan ay wax akhristaan dadka ay saxnaa management guriga soo bilaawday ilaa guriga soo manage gareeyay school of management ma geli ma la geli karaay kiyam bartata macalani management xaafadda ka wajid islaanta dugta kacki saama sorry wallahi ilaa xaaskaaga guriga soo hagaajisay management barakays
حافظي وتجي كل وين صار كله وقعسوي رجع ما أنا قبل لا يعني ما تبص لها المدينة guriga inuu waan ilaaminayaa wabillahi tawfiiq xigmadu marka waxay tahay qofka hadaa si kasto cagis oo awood u shaqaaga asal hayn meel uu asal kaaga aaraya Soomaa islaamka inta anu kalmad dalay maadaama wadaadkii halahaadi ku soo dhawaad anu waxa bal qaaday tir maadaama inta soo wadaadkii dilay in anu hagar daawada ka dhaafo mesela inuu hagar daawada maalin kasta ninkan dilay ka awood badan maxaa wanta kasta oo keenay kaadi ku soo diri jiray مستر عيد حسين جامع runtii waa nin aad u xikaayo badan u sheeko badan ragga uu degan yahay yaqaan iyo xaafadu degan yahay waa nin aad u qosol badan runtii hadii time aan sii maaqnin ilaa caaw uu gaarsiinayo marka waqtiga kooban awgiis mantin sharafta inoo joogto macruuf iyo mataqaanaa sheeg iyo directorka international affaireska Mr. Fakhr Hussein aan soo dhaweyn doonaa mar dhow laakiin waxaan ka hormarinaa hal kalmo maadaama uu saarka maqan yahay waxaan soo gelinaynaa Mr. Cumar Aadan Cabdiraxmaan aan kusoo dhaweynaya marka hore baajkiisa waa BBA wuxuuna hadda dhameeyey Master of Development Study waa senior haddii 10 sano oo ka badan senior okay waan soo dhaweynaynaa Mr. Cumar fadal mashkuura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أكون فرحان هاي يعني إذا كان صدر بالبلد مش كان. Before that, I want to thank Mr. Maruf for the reason why you are all here in this university. And برامج حال ليش هرمان المرحبين. ولكن أنت أنا أصلي إلى بولد اللي كان وأنكم أحسن المركب وراء المركب لواد وطن كان لي واحد من 2009 صدق خوف أفر خوف ما أنا أكون جوجني 2009 10 11 Somali ناس جوجن ده بولد ده بقول يا حرام علينا وطن يدار نهاية waxaa dhacay Soomaalida markay soo badatay 10 qof 5 qof camal ismaaday jaamacadan ku majirina kulid waxaan isku daynay inaan sameeyno urur ardayda ku midaysan waxaan islahayn iska Soomaali iska foodo badan yihiin marka xal intuu numberkeed ka baro waxaan ka gaarsiiyay inta baasha soo balay 2014 first time waxaan isku dayay inaan sameeyo urur waxaan isku keenay jaamacado badan boodhig ugu horeyso because numberka ugu badan majority-ga ardayda waxay ahaayeen jaamacadan ay dhigato tay badan aan ku bixinay juhdi badan aan ku bixinay waxaa noqotay wixii dhamay macnaha dad yar oo very individual inay haraanti ku dhuftaan markii la weydiiyey xitaa aysan aqoon sababta u diidayaan waxaa u diidayaan waxaa dhici weysa inaan isku keenno shaqo aan ka dhadhacsiino macnaha urur iyo nidaam waxaa samaysano marka wallaahi waan ku farxay markaan arkay intaanu arday Soomaaliyeed dadkii isku keenay macnaha waxaan aaminsanahay inay joodi badan ku bixiyeen mar inaa warkiisa dheeraado marka waan u mahadcelinayaa guddoomiyaha doortay marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay xilkaad ilaaha kuu fududeeyo ninkii Soomaali xog u qabto kolley faa'iido badan waa helaa asaariisaas ka yaraanayso marka waxaan leeyahay ilaaha kuu fududeeyo insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sadar muqla su'aal ka dhan dhaanta Soomaaliyeed oo aad u qurux badan kooxdan runtii
Mr. Fakhruddin Hussain, Fakhr Hussain, International Director of International Affairs for Djibouti International University, and I just like to call Mr. Maruf to tell some about for this event for the graduation ceremony. Thank you so much. Thank you, Minister Hossein Gabani. Good evening, all my students. I think all of you are well in Bangladesh. So it's our pleasure to have a good number of students from Somalia in Djibouti International University. And so far as I know, and as far as long I know, that all of you are studying well and abide by the laws of Bangladesh. Hope in near future you will do good also as well. And also I want to welcome our new chairman in Somali Student Association, Ahmed Hassan Butale. Thank you all. Thank you. And thank you, Mr. Maruf sir. And every man and woman knows that Mr. Maruf's contribution for the Somali students is special, and we like all of us thank you at one time and say thank you, please say thank you, Mr. Maruf sir. For special. And at that point, I would like to call Mr. Fakhr Hussain, Director of International Affairs for this university, Djibouti International University, and say welcome, sir, and welcome to our class. Thank you, sir. Thank you very much.
It is my pleasure to meet all of you here at Darfur International University, specifically Somalian students. I welcome all of you. I know that most of them from the Darfur International Somalian Association, Students Association, some other universities, Dhaka University, and some other universities. So we welcome all of you. Actually, day by day, we found last 2 years back, we have very few numbers of Somalian students. Right now, as far as I know, 130 plus students from the Somalian for different programs at Darfur International University among the 5 different faculties, both in undergraduate and the postgraduate program. So all of you know this, just 13th of January, we had 5th convocation. I'm really happy as the Director of International Affairs at Darfur International University, 45 graduates, foreign students graduated through this 5th convocation. And out of 45, 18 were presented in that convocation and the rest of them already left to their home country, right? Among the 18, I think 15 from the Somalia. So it's a really good number of Somalian students, both in undergraduate and the postgraduate program. So I congratulate all the graduates actually. I know few of them already passed and few of them waiting to go back home soon, 10 or 11 students shortly within the next one week time. So just my request to all of you graduated from here, whenever you go back your home, I know you are waiting to go back home. Yeah, this is the natural actually. You've been a long time waiting here to get your graduation. So whenever you get back your home, you will work as an ambassador of Darfur International University in Somalia. So if you have anything, have any help or any suggestion, just knock us. We'll extend our hand to support you at Somalia, right? So I just remember in my past life in UK, I've been in University of Glamorgan back 1993, and I did my PhD from Computer Studies Department from the University of Glamorgan back 1998. I've been over there 5 years. I know what's the situation when we are staying at a foreign country. I know maybe you they struggle hard here, both on your education, but in your places, so many hard work you've done to overcome all situations and finally achieve your degree. So I'm sure this is a good experience for all of you who got the degrees, and implement this experience in your country. I hope you will develop your good career in Somalia, right? So I wish all of you actually, so I may not prolong my speech, but I hope all of you who are already graduated, who will be going to be graduated, all of you working as an ambassador in the Somalia now and onward. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. And at the last, I will call, not at the last, but before the last. I will call, waxaan wacayaa Mr. Gutale oo si uu ugu hormariyo khudbadda Ingiriiska ugu talagalnay mataqaanaa in madaxda iyo mataqaanaa u akhriyo khudbaddeena Soomaaligana gadaal ugu dhigi doonaa insha Allah si madaxda oo suguutinayno ugu akhriyo khudbadda Ingiriiska waxaan soo dhaweynaynaa Mr. Ahmed Hassan Gutale gudoomiyaha noo dhamaan annagana barnaamijka weli fari kama qodno faanoole laakiin waxaan rabnaa maadaama waqtigu uu yar yahay in ayaga marka hore macsalaameeno kadibna howlaheena kale aan sii wadano insha Allah wax kasta limid ay leeyihiin limid halkaas ku egyahay barnaamijka oo dhankaas qaybta kale ma bilaabanayso waxaan rabnaa Mr. Yusuf iyo Cumar inay nala dhaweeyaan martida Cumar xaaji Cumar iyo Yusuf hadday joogaan Yusuf hadduu joogin ciid madaxda soo istaaga nala dhaweeya ilaa albaabka bixiya Ali, so he's selected or elected? Selected.
selected as the chairman of the Darfur International University Student Association. This is the first time actually the Somalian students form a community here at Darfur International University. Let's clap your hands. So I congratulate Hassan. So